inay qayaano ay ku jirto taas baa ku cadaynaysa macnaha ma aanu sheegin waxyaalaha Kenyaatigu ay sheegeen oo 29ka diyaaradood oo Britain baxay waxaan waa 27 diyaaradood la yiri waxa soo wixii imaanayo wallahi beenini ma sheegay yani aniga inaan caawinay caloosha kansarka ka dhacay because of geedkaas jaadkaas marka waxa maanta baaba'aya waa dhalinyaro waxa baaba'aya waa wiilasheenii yaryara ciidankan laftigiisa qayb bay ka tahay in lagu burburiyo oo maaragtay jaadii la siiyo oo farmaajo maamulba soo aruursanayo oo yani hawada laga saaro marka waxan waa big waxyaalo yani ha yareysanina oo ha u maleynina just in cadifad clean qaaday laakiin waa qorshe socda maaha cadifad waxna qaaday waxa meesha loo jeedaa dhalinyarada askartan la soo tababarayo in la yiraahdo jaadka gata meel walba loo raqiisiyo ama waxyaalo laga keeno lagu soo qubo wadankii wixii dhan dhalinyaradii awal oran jiray ahaan jirtay 2000 markii xasan xilligii haystay darbiyada fadhiin jireen askar ahaayeen magac bay lahaayeen waxa la dhihi jiray maxay ahayd maxaa la dhihi jiray lagu godla maxaa la jiray magac saas adag bay lahaayeen hadda ma xasuusto maskaxdayda laakiin magaca la dhihi jiray marka waxa waa maanta inta meel fadhiyaan qaraxa oo imaanaya waa wada dhimanayaan intii meeshaas fadhiyo dhan hal mar bum 10 daqiiqo kadib meesha inta la xaaqo waxa la keenaa into kale marka waxa waa small yani easy genocide tartiib dadka lagu wada weeyaan waxaan hawo maleelina marka hana yareysanina hana maleelina maarta kaliya inaan leenahay oo xasan sheekh saaso sheekh xasan sheekh action kiisa ma baxana waa ku taageeri karnaa ama waan ku nici karnaa waxaan ku nacnaa hadana tusaya marka maaha inaan indhaha inta iska qabano aan tusno aan nahno waxa ma jiraan marka adinka raali ka yani hadalada haduu kulkulul yahay waxaan kala rabaa inaan sheego waxaan oo malaayga Soomaaliya laga qaadayo waa waxa aan dhahna oo ku kacsi baa la yiraahdaa anagiibo waa been naloo sii sheegayo moogtahay macnaha dadkii waxaa nagala dhaadhicinayaa diil baan soo galay oo maaragtay waxbaan soo wax ka jira ma laha cid hal malaay ka qaadanaysa ma lahan maaragtay dhibaatadina anaga ay maaragtay noo soo biyo shubanaysaa waxa halkan laga dadalanayo waa lacagta masaakiinta iyo waxaan in sheegayaa waxyaalaha anaga aan awood u leenahay inaan sameeyno waxa waaye lacag adiga aan leedahay jaad lagu iibinin intaas baan in sheegayaa familkaada qofkii aad ka dareento kulliba anaga lacagaha bixina oo hadayna waan sheegayo biilasha dadka siina qofkii aad ku tuuntaan inuu jaad cuno ka stop gareeyo lacagaha aad direysaan saas baan sameyn karnaa iyo inaan dadkeena wacyi gelino dhibaatadan soo foodle aan u sheegno maaragtay waxyaalahaas oo dhan ayaa noogala baahan yahay in aan maaragtay ka dhawaajino waana mahadsantiin هذا ما سمعت عبد في محمد كسو أنا قل هذا أنا نقص بير يعني كان لنا كويه أنا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أما شطور دمان أنت ماشي كتير تورنا وين السلامي جماعة ونكسب بعد والله هاي أرنتان هرت madaxweynahan xasan maalinba maalinta ka dambaysa horta waa kasii fogaanina oo meeshii la dhahay ninkan loo tartiibiyo hala sugo oo hala dhowro horta waxaa sii muuqata maalinta ka dambaysa god buu maaragtay sii gelinaya Soomaaliya marka isaga hadda waxaan hadda ka dhaxaba arrintiisa ma garanayna hadduu qaadka soo seexay waxa haray oo ilaahay abuurtay iska yarba marka oo Kenya isku dhiibay marka waa arrintaas waa arrin aad looga naxo waana arrin runtii Soomaaliya maaragtay dhibaato ku ah mid kale waxa mashaakil uu ka taagan yahay double standardka oo Mareykanka uu isticmaalo waxa kamid ah hadda waxa jirta 1992 December 14keedii naag la yiraahdo Lisa Sly ee Chicago Tribune waxay ku qortay arrinta qaadka ee defectada uu ku leeyahay soldierskii Mareykanka oo joogay markaas Soomaaliya peacekeeping u joogay dhibaatada ay ku haysay iyo wixii dhan markaas waxay la dagaalameen qaab kasta oo qaadkaas isu soo galay inay ka hortagaan sababtoo ah waxay u bixiyeen nimanka skinny guyska ma nastaan haddii qaadkaas ay haystaan yani ma seexdaan waa niman soo jeego active oo maxaan ku sheegaa dagaalkii Sorry guys, I just hit by mistake. Continue.
كسو أنا قل marka waxaan artikelka waa maqasheen baan u maleynayaa mise waa idinkugu celiyaa أو ما قال إنه جوه artikelka oo 92 naagtaas ay soo saartay oo Chicago Tribune 92 December 14keedii waa dib u googleen kartaan waa heli kartaan waxay ka qortay waagaas askartii loo diray peacekeeping Soomaaliya oo Mareykanka ayaa dhib badan ku qabay chatka imaanaya way si cad bay u sheegaysaa sida hadda Robbie laga damacsan yahay oo in qaadka la keeno ay u sheegaysaa oo leedahay qaadkaas diyaarada yaryar ku imaada oo saasa kan ah askarta waxay ku noqotay dhib marka US Marine waxay go'aansan inay ka hortagaan qaadkaas sababtoo ah skinny guys maxaan ku sheegaa ma seexanayaan haddii qaadka uu imaado marka qaadka difaatada uu leeyahay yaa waxay tahay wax aan la qaadan karin oo dhibaatada uu familada gaarsiinayo iyo waxa uu yeelayo ayaa tirada ka badan marka oo wax loo qaadan kara marna waan ahayn haddaan maxaan ku sheegaa wax yar ka soo qaadan fiiri wuxuu u keenayaa familku uu daran yahay oo hadda waxa dhibaatada taagan qaadkan hadda soo degayay waxa sii badanaya corruptionkii dhaci baa sii badanaya ileen qofku maalin walba qaad ma gadan karo waxaan waa habit waay hadduu mar maalin cuno maalin kasta inuu cuno imaanaysa company inay ku cunaan oo group ku cunaan oo kuwa kale u qaada imaanaysa marka horta already waxa bilaabanaya musuqi iyo dhaqaalihii Soomaaliya oo dumayay oo haddana la baabi'inayo wuxuu taas kale dhibaato haddana ku sii yahay qoysku u daran yahay wuxuu u daran yahay qofka laftiisa maskaxiyankiisa u daran yahay oo illusionu wuxuu ku ridayaa oo waali ah oo maxaan ku sheegay maskaxda ka wareerinaya ka waalanaya oo wax maaragtay oo uu soo ku kicelayn uu ku kacayo aakhiritaankan caafimaad darro ilkihiisa hadday ku noqoto baabasiir sokor waxaasoo dhan buu dabada ku wataa marka not only that waxaa ka daran sunta lagu buufiyo oo looga cayayaanka la damco in looga dilo sida sunta loogu buufiyaana loogu keenaa oo Soomaaliya uu ku imaadaa dadkuna sidooday ku cunaan marka dhibaato oo xoog leh oo bahalkan horta nagu hayaa noona keenaya haddii wadanka uu soo galo marka si kasta oo loo wacdin lahaa waa la qabaa baashtoorka dadka kale wacdin badan in la badiyo dhaqaalaha dadka loo diri jiray dadkii qaadka maxaan ku sheegaa cuni jiray hadday ku jiraan in laga celiyo oo laga qabto in maaragtay waxyaalo badan oo ku saabsan bahalkaas oo dhan in runtii aad looga dadaalo inaysan maaragtay dhicin oysan iman marka waxaan ku darsan lahaa arinta oo maxaan ku sheegaa uu keenay qaadkan hadda soo degaya 29 diyaaradood oo hadda soo degaya dhaqaalaha ka imaanaya waa in runtii aad loo boycott gareeyo oo in fact meel walba ilaa UN-ka meel walba laga qayliyo la yiraahdo waxaas waa wax wadanka lagu duminayo waxa wadankan aad mucaawinad u geenaysaan waxa lagu cunayaa qaadkan oo dadkii lagu baabi'inayaa lagu sameeyay sababta waxa cuni kara kaliya wax government u shaqeeya ama haysta contracts government ka haysta marka runtii waa waxyaalo badan aad looga qayliyo oo laga dhawaaqo oo dib ku ah society-ga Soomaaliya aad ugu liidata shakina kuma jiro diilkan horaan looga hadlay 30 iyo waxa diilkan soo saxay ninka la jiray Roble diilkan waxay leedahay ogaada waa business partnerka Xasan Sheekh sida lagu sheego yani facts anagu ma hayno laakiin boqolkiiba waxa lagu sheegaa inuu yahay maxaan ku sheegaa businessman-kiisa oo runtii uu ku qarsado wax inuu 30 yahay marka taasna kolley waxay goorna burfurayn doona way soo imaan doontaa mar iska soo cadaan doonto waxaan hadalka ku koobi lahaa maalintan hadda aan lala balansan yahay aan Garrison gabadhii maxaan ku sheegay journalist we need to raise arrintan qaadka lafteeda in aad loo raise gareeyo laga hortago lagu xataa loo diro embassy-gan hadda Mareykanka iyo Ingiriiska oo hadda aan u maleynahay inay colluders ka mid yihiin qaadkan arrinteeda ay ku lug leeyihiin sababtoo ah waxyaalaha yaab leh waxyaalaha isku aadiyay many things inkastoo ay noqon karto laakiin wax laga yaabo maalintii safiir ku tagay labadiba isagana maalintii ku xigtay oo tagay Kenya marka waa wax isku aadan oo moodayso inay labadoodaba maxaan ku sheegaa ay xoojinayaan
qaadkan furitaankiisa wixiis arrinta hadda laga hadlayo kalluunka iyo waxaas Kenya kalluun ma baahna way leedahay bad inta mid kale dad oo saas kalluunka u cuno maaha dadkan waxa cuna waa dadka coastal line-ka degan baa kalluunka cuna inta kale oo maaragtay degan dhulkan kale hilib iyo waxaas cunaan maaragtay uma badna dad fishkaas badan cuno uma badna kuwa fishka cuna oo magaalada Nairobi iyo wixii ka shay qabana waraha ay ka qaataan fishka waxay cunaan waraha lakes fishkooda cunaan marka uma malaynaa in anaga fish quantity weyn oo fish maanta oo business oo leeyahay Soomaaliya ku aflaxay ma maanayso marka anaga bay hadda dhaqaalaheena duminaysaa society-geena duminaysaa qaadkana lagu soo fasaxay yani waxa maaragtay aan ku hadli karno male waa lasting oo maaragtay la sameeyo maanta ma garto waxa igu daran wax walba ninka waxa uu hartay less than 2 months ma dhama I think 12th of August inay tahay doorashadiis maba loo tagaba madaxweynaha waqtigiisa dhamaanaya iyo saxiix waxa lama garan because you don't know inuu isaga weyn gareyn doono in kale hadda wuxuu siiyay Abraham gacanta sar u siiyay Uhuru which means Odinga oo ku campaign gareeyay aniga doorta ana qaadka keenay ilaa waa keenaya waa sheekadana meesha ku jirtay marka that's why meesha ka shaqeeyo ka socdo Odinga qaadka ana inaan geeyo Muqdisho oo ka dejiyo maalinta aniga doorataan marka Uhuru chance kale oo maanta uu ku soo noqdo male laba taankiisa waa dhamaaday ninka uu dhisay waxa waaye uu rabo inuu isaga corruption-kiisa uu rabo inuu madaxweynimo ku keeno maanta Abrahamki waxa uu sahlay uu ku heli lahaa arrintaas waxa uu sahlay Xasan Sheekh marka intaasan ku soo gabagabeynaa xataa Kenya siyaasadeed inuu xataa maanta ka caawiyo arrintan waa wax maaragtay aad looga naxo oo cadow nagu ah heshiis waxaan la geli karna maaha waxaan meel geli karna maaha sababtoo wadan ka haysta North Eastern Province oo dhan ka haysta qaybtaan maaragtay waqooyiga Soomaaliya oo dhan laga haysta si heshiis ula gashaa ma u noolo sida looga nool yahay Kirishana North Eastern Province aad u dhaqan loo qato magaalada baxdeeda la laayo marka maxaan ku sheegay Kenya mar adiga heshiiskeeda absolutely waxa waaye waxa ahay waa ka soo jeedin la heshiis Kenya boqolkiiba aad iyo aad baan kula qabaa aniga laftiga kugu raacsanahay waxaan inta ma ahayn wax macnaha oo maaragtay qarsoona wax la leedajinayo ahayd oo hurina laftigooda uu game ka yahay gaaladan hadda oo maaragtay ama Ingiriiska iyo France iyo Amerikaankaba waxaan waa wada game isla socda Soomaaliland baa loogu talagalay nimankan waa profiteers wax kala jecel yihiin ma jiro in wax ka helaan oo faa'iidaan bay rabaan wadankan inta yarta laga soo shaqshaqan karay rabaan that's the only thing qaadka loo furay ma jirto shacbi loo naxayna ma jirto dadku in lagu duleeyo oo wadankan lagu duleeyo oo maaragtay yani diiga masaakiintana lagu cabakaliya meeshan loo soo fasaxay wax kale oo asxaan laga leeyahay iyo dan kale oo laga leeyahay meeshaas ma jirto haba yaraatee taas waa wax cad oo qof walbana aysan ka qarsaneen waxaan siinayaa hadalka Bashiir kadibna Mukhtaar baa ku xiga intii kalena gacmaha taagta oo rabta in hadasho abo hal eray ma ku dari karaa hadalku caanageel sheegay ku socod Bashiir ma hadlayo ku socod caanageel horta waa runtiisa hadalku ka yiraahday Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh orwayd salaamay Bashiir iska sug hal daqiiqo dhexda hal daqiiqo okay arinta waa mahadsantahay Bashiir raalo waa ka wax yar horta arinta pesticideska loo isticmaalo miraaga Kenya waxa waa arin aad iyo aad yani oo halis noogu ah because nin askariya mar wuxuu igu yiraahday qaadka Itoobiya marka cuno habeen subaxii aad baa u soo kacay yiri laakiin Kenya marka cuno habeenkii cun madaxa xoqanaya yiri ilaa subax dambe hurdo igama soo dhacayso igu yiri marka waxay ku daraan but there must be something that is much more addictive than magaalooyinka kale ama qaadka laga soo galiyo Soomaaliya teeda kale warqadu caanageel yiraahday safaaradda Ingiriiska ha loo qoro a good example is wadankooda naftirkood markay fahmeen inuu qaadku halis ku yahay shacabka siiba Somali community-ga waa la jaray illegal laga dhigay
niman badan oo gurigooda ka soo bixin haween badan oo gurigooda ka soo bixi jirin oo jiijiifaa soo wada kacay marka that's intaas baan rabay inaan supporting statement ku daro waan ka baxay aad baad mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa runtii maamul goboleedyada inay ayaga mid walba intuu go'aankiisa gaaro yiraahdo anaga meeshana lama keeni karo haddii maanta dad maamul goboleedyada ka socda ku jiraan oo aan dhegeysanayno waxaan jeclaan lahaa inay lahaan anaga noo gooni tahay yani xasan sheekh wuxuu soo sheegay Kenya asaga u taala laakiin anaga magaaladeena lama keeni karo sababtoo qof walba mas'uul wuxuu ka yahay shacbigiisii inaan lagu sameynin gacantiisa hoostooda marka qofka caqli leh oo maamul goboleedyada kamid ah inay lahaan ma rabno wixii kale oo ka soo horjeedana waa kulay waa la qaybsanaya ama danba ugu jirto waa lagu aamusinaya diyaaradda 9 kama wada tagayso hal meel waxay wada tagaysaa Soomaaliya oo dhan meel kasta ka jooga marka waa runtii aan fortune waa wax meesha ka socda Bashiir ku socdo walaal Bashiir ma maqlaysaa مختار كسر بشير مقبناي هوس بشير كونه غادي صدق صنعته عندها تلقى حوجي بشير خداد مقلسي هذا haddii kalena maaragtay hoos u deg maxamed ku soco marka haddii la mukhtaar ma maqlaayo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل هذا ما هو السلام يا أنت كل فكرة عبارة عن نجيسني فكرة هسه كهذا ليش بكل ولا غير دواتشي أنا قيلي كل محن كل عرب وكهالين مركا يروم بارا بين يرا كيرا دورو أنت حسن الشيخ محمد بريجر حنا يا بشر مدين كل عصوا حنا يا بشر أفضل بنا يا بشر إنشري والبلين كان دبلوك هذا ما أنت دوشان سنة معارض سواها wax badanna wuxuu qalday iyo wuxuu saxay u garanaya bal waa intaas wax bedela baaniye aga hawdhigna bal yara kaadina yara taageerno balto inuu bal dhageysana muddo marka waxa leeyahay qofku nima taqaana ma yartiya yaa tahay lama yiraahdo marka xasan korto waa xasan kale yaqaanay waxaan uu maanta sameeyay dhibka inta la eego uu geystay ina waa wax Soomaali iyo shacabka iyo ummada Soomaaliya wadankaba u daran oo maanta geeri kaga xun sababaha uga wareegay safarada hore oo kii imaaraadka ku tagay iyo kii uu maxaan ku raadayay Eritrea ku tagay waxay ahayd inuu xalaalaysto maxaan ku raadayay safarka uu Kenya ku tagayo barnaamijkan hadda uu kale saxeexay heshiiska uu galay qodobada kale kii ninkii la oran jiray Harun Macruuf aankii wuxuu soo dhigay iyo dadka soo dhigay iyo kuwa la sheegay waa jiraan marka runtii wax inna malaqan waa in la sii daayo oo lagu taqaadka in la sii daayo kaliya sida hadeer aan manayno caana gelbo ahaa ka dhawaajiyay waa part of buka yahay maxaan ku dhawa ganacsiga qayb ka yahay wax ku leeyahay weey way sababtoo tahay heshiisyada uu leeyahay kalluun baa la isdhaafsanay ama kalluun baa lagu bedelayay meesha lagu soo qoray xabis weydiin Soomaaliya ma jirto cid kalluunka qaabilsan oo soo saarta ma jirto shirkada ama private ha noqdeen ama kuwa dawliga ha noqdeen oo kalluunka soo saara doonyo ganacsi oo kalluunka badda ka soo saara ma jiraan meel kalluunka lagu maxaan ku lagu dajiyo laga maamulo oo cid maamusha ma jirto magaalada la keenayay dadka danyarta ay soo saareen magaalada ku filayn kalluunkan la dhoofinayo Ethiopia maxaa Kenya qaadka laga bedelanayo xagee laga keenaya marka in maxaan ku raadada barnaamijyadaas waxba ka jirin qaadka oo la fasaxay ahayd isaguna qaadkaas uu faa'iidadiisa loo sheegay inuu isagu faa'iideyso maanta Xasan Sheekh Maxamuud in wax laga sugo oo la yiraahdo waxba bari hagaajin doona ama wax kale inaysan muuqanin waxa la wuxuu doonu sameeynaya cid bisan wax ka dhageysanin hal gelin uu shacabka raali geliyo cid kale oo tala jeedin oo tala ka qaato inta midna ma jirto marka halka qodob aan ku daray waxay tahay dadka ciidanka madaxda u ah
ciidankeena Soomaaliya maanta meesha kaliya inuu hadii u gudbo oo dadkaas ay maxaan ku radaa afka saaraan waa ciidankaas haduu qaylo oo muqaadaraad galo tayadiisa lumaysa fakarkiisa lumaysa maxaan ku radaa nabadgelyada iyo amniga